أهلين كسو دواذا أميرس كوشين مانتي مقال كالا عصب waxaa kaga faa'iideynayaa waxyar ood ku cayili kartid adigoo guriga joogtid oo healthy ah adiga iyo caruurtaadaba masha Allah nafaqo ah idin anfaci doono soo dhawaada ka faa'iideysta muuqaalkan waxaa idinka codsanaynaa meel fog gaarsiisaan like gareysaan noo share gareysaan intii ugu cusubna gacmo furan ku soo dhawaada meeshan waxaa soo dhigtay moos ayaa inta ku hayaa sidoo kale waxaan geeska ku haystaa peanut butter waxaa waaye lowska shiidan asagana waxaa weeye waxyaalaan rabaa inaan ka isticmaalo muhiim waa ma garateen difin uu leeyahay aad iyo aad ugu fiican yahay markii alaabtan isku daro wuu ku anfacayaa haddii aad doonaysa miisaan kordhis weeye okay waayahay waxaa kalen ku haystaa meesha qorfe shiidan muhiim jiddan waa isagane qorfaha shiidan ayaga waxyaalaan rabnaa inaan ka isticmaalno geeska waxaa ii yaasho timirtu way badneed balse intaana kasoo qaatay waxaa rabaa inaan kasoo bixiyo diirka kore lafahane ma daadin doono insha Allah waxyaaba kale aan isticmaali doonaa hadda waa kaasaa ujeediinba masha Allah tabaarakallah timirtaana isticmaalaynaa ayo timir ayaad isticmaali kartaa okay waayahay hadda waxaan ku bilaabaneen waxaa kaloo ii yaala meesha caano haddaad rabto yoogada ku shiidi kartaa alaabtan laakiin iskuma soo baxayaan caanaha caadigan ku shiidi doonaa waxay kusoo bixi doontaa wax yar oo macaan badan oo healthy ah ma garateen marka insha Allah ila socda mooska waxaan ka isticmaalayaa ilaa 5 xabo sidoo kale timirta adigana waxaa waaye lafaha kor ka qaadayna adiga ugu yaraan 2 mina ka isticmaali doonaa insha Allah marka wakaasahay hadda insha Allah ila socda hadda waxa weeye timirtii ayaa rabnaa inaan diirka kore ka qaadno lafaheeda aniga waxaa waaye waxyaabo badan oo isticmaalaa shaaxan ka dhigtaa gaxwaan ka dhigtaa waxa marbo wajiga marsadaa lafaheedaas timirta faa'iidooyin badan ay leeyihiin iska tuurina gabdho waadna arki doontaa faa'iidooyinka hadda waa kaasaa adiga wax badan aan rabaa inaan kasoo qaado diirka waa kana adiga waxay u qaadatay ilaa 2 daqiiqo wax badan aan sameynaa ma garateen waa kaasaa ka bacdi hadda waxaa waaye waxaan rabaa inaan isku shiido intaana ujeedaan waa smoothie healthy ah dhadhan macaan leh aad u fiican caruurtana anfici doona alaabtaan iska tuurin gabaree waxtarkeeda aad buu u sareeyaa meel dhigo dhalayar ku shubo markii muhiim aad u baahato ayaad isticmaalaysaa hadda waa kaasaa alaabtii aan gees iska dhigaynaa mishiina soo qaadanayaa waxaa rabaa inaan isku shiido ila socda mishiintii soo qaatay kadib waxaan kusoo jarjarayaa mooska waxaa ilaa 5 xabo ka isticmaalaya kadib timirtii ayaan gab kusoo siinayaa shantii adiga timirta tumin waaye qiyaasteeda kadib peanut butterka ayaa waxaa waaye kusoo darsanayaa ilaa 2 qaad oo buuxdo adii 3-4 qaad ka dhigan kartaa laakiin ma rabi inaad difin badan u yeelo marka wakaasa 2 qaad kaliya aan dhahay laakiin u yaraan iyo bar waaye 2 qaad iyo bar kadib waxaa waaye caano booro ayaa kusoo darsaday caano booraha daarti waa u badan daarti waa ka yareynaysaa difin uu leeyahay isagana saa u garanaysaanbo caano booraha ilaa 6 qaad ama 5 qaad camal aan kusoo darsaday gabaree waxaa ku cabiran kartaa koobka gaxwada marka waa kaasaa soo buuxa kusoo dareysaa kadib waxaa kusoo daray alaabtii kale oo qorfaha shiidan soo tijaabiyaan ku leeyahay aad buu u carfinayaa dhadhan another level nu yeelayaa ka bacdi meesha waxaa yaala biyo caadiga ayaan kusoo darsanayaa glaashiya isticmaalayaa adiga biyaha korna ka soo marin laakiin lasim okay markaas qatar noqonaa ma garatay lamara wax yar oo culeys badan oo sidii ice cream ka camal loo cunaay mayame wax yar oo la cabi karaa laga rabaa mishaar camal inuu noqdo marka had soo jeedin markaas waa isla simeysaa waan isku shidan haba yaraatee sokor kuma dari doono ha ka yaabin ma garatay sokor ma rababa inaa iska ilaabaan rabaa marka wakaas insha Allah isku soo shiidaya waa isku soo laabanayna insha Allah
waa kana markaa soo shiidayna maasha allah tabaaraka allah sidai isku wada tawjiidaan yaa wax dhagruurna ma aha laakiin waa meeshii laga rabay. marka hadda saa ujeediyanbo koobab iyo weelal la soo diyaarsanayaa. waxaan soo diyaarsaday kirligan dhalada ah ayaan kusoo shubanaya. okay, kirliga soo buuxinaa kabacdi koobab yaryar kusoo shubaya. caadi ma ahan gabaray, alaabtan keligaa cab kuma dhahay, caruurtaadana ku nafaqayso. wax yaroo macaan badan waaye. galbihii u sameey, iskoolkiyaa la furay, markay imaadaanba hal koob ka sii insha allah. way ka helayaan, way ka duceynayaan. mar walbana isku day inaad u sameysid. waa wax yaroo healthy. okay, miisaankana uu kordhinayo, sidoo kale ay ku qurux badnaanayaan, nafaqaysan masha allah. adigana haddii aad tahay gabar caata ah ama hooyo caata ah way ku anficaysaa aad iyo aad. waa wax yaroo healthy ma garatay. marka insha allah soo tishaabiya baan idin leeyahay. wax yaroo qorfa ayaan korka uga soo daadinayaa. caadi ma ahan. waaw, muuqaalka haddii wax yar haba yaraatay aa ka faa'iiday, like-ta noo saara, noo share gareeya insha allah. wax badanna waa idin soo wada in soo gelin doonaa oo cusub. muuqaalka waxaa waaye lagu dhiirgeliya like-ta ma garateen, ina share gareeya. sidoo kale lafaha timirta ma tuura idin dhahay, waxaan ka sameeyo waa idin tusayaa. muuqaalka dhammaadkiis ka daawada insha allah. kheyr caafimaad baa idin rajeynayaa walaalaha qalbiga. hadda kadib timirta lafaheeda ha iska daadinin. sirtaan ka faa'iidaysa gabarey. kusoo dhawaada Amiras Kushiin. maanta muuqaal kale oo cusub hadduu idin qanciyo like gareeya. si ayaa kusoo shubaysaa lafihii timirta, kabacdi waad dubaysaa. markay sidaas u ekaadaan ee madow noqdaan waa kasoo dejinaysaa. gees ayaa dhigaysaa, kabacdi wayna shiidaynaa. mashiinta hadaa heli karin mooyaha ayaa ku tumaysaa. kabacdi markay sidaas noqoto digsi ayaa dabka soo saartay. waxaa kusoo shubay adiga hal qaadi bar camal oo budadii timirta. kabacdi biyo ayaan kula soo shubay. laba siyaabood waa marka. hadda sidaan shaax ama kafee ahaan ayaa u cabi kartaa. okay, sida kala gadaal idinka tusayaa. hadda marka sidaan usoo buro hadaarti sokor yar ku daray, dii kalena waa iska deynaysaa. kabacdi shaax ayuu ku noqonayaa. okay, shaax ahaan ayaa u cabaysaa. sidaana waa sameyn kartaa. budadii ayaa kusoo shubanaysaa caag. kabacdi saliid midii aa heli kartid ayaa kusoo korshubaysaa. saliida qumbaha, saliida zaytuunka ayuu saliida heli kartid. okay, kabacdi waa kusoo kordaraysaa. markaa kusoo kordartid waa isku qasaysaa. bacdeen meel ayaa iska dhigaysaa. adiga waa inay taalaa hal maalin ama hal asbuuc si ay maxeeday gudaha lafaha iska yacni dhiindhiin iskugu noqdaan. kadib tintaada ayaa marinaysaa. waxay kaaga dhigaysaa tim qurux badan oo dhaadheer oo madow oo bis ah maasha allah. tintaadana waxaan ku dhahay ma daadanaysa dambe. timahaada bis ayay noqonayaan shayni qurux badan, dhaldhalaalayo oo dhaadheer xariir ah. marka tintana waxaa waaye muddo yar gudaheeda way ku dhadheereynaysaa saliidani. soo tijaabiyaan ku leeyahay. isbuucii waa inaad marsataa 4 jeer 5 jeer. okay, timahaaga u laazim way ku madoobeynaysaa haddii tima cadcad ka ahaayeen. sidoo kale timirta waxaa laga sameysan karaa shaax. okay, timirta meeshaa sokor uga soo dari laheyd ayaa timirta uga soo darsanaysaa. lafaha ka bixinaysa, kabacdi qiyaas yar intaa kusoo kordaraysaa. shaax cadeys leh laakiin meesha sokorta ayaa timir ku bedelanaysaa. macaan caraf ayuu kaaga dhigayaa. kaal iska arag shaax dhakajibiye oo dhadhan macaan leh. haddii waxaan ku dhahay muuqaal yaroo isku dheelatiran waaye oo dhammaystirane like gareeya, follow na isoo dhahaa. bye.